waxaan ka hadlaynaa maanta Cabdisalaan Cabdullaahi Warsame Caynab oo ahaa nin darawala oo caruurtiisa u shaqeysta waa nin weyn oo darawala la wada yaqaano oo reer Buuhoodla waxa laga qabsaday magaalada Laascaanood waxa qabsaday ciidan RRU Laascaanood waa gobol dhan oo la xeer ilaalin iyo maxkamad iyo maxay ahayd wax kasta u dhameystiran waa gobol qof gobol laga qabto oo adduunka lama arag aan gobolkii isagoo aan wax baaritaan iyo wax maartay qofka hadii laga shakiyo marka hore waa laga shaki karaa qof kasta oo muwaadin ah laakiin waa in qofka maxay ahayd gobolku joogo su'aal lagu weydiiyo oo lagu baaro oo hadii wax raad lagu helo marka meesha kale loo sii gudbin karo loo gudbiyo ninka isagoo gobolkiisa jooga ayaa la afduubay oo la jirdilay waxa loo qaaday magaalada Hargeysa ee Hargeysa la geeyay odayaashii baa ka daba tagay muddo 2 bilood ay halka lagu haysta qof bil aadan oo adduunka muwaadina oo maxay ahayd aan intaas oo xilliga inta leeg aan maxay ahayd baaritaan la marin oo xiraalin la marin oo rumaan la geyn oo waxba laga qaban waligeed la isugu yimid Cabdullaahi Faysal Cabdullaahi Warsame Cabdisalaan Cabdullaahi Warsame oo ku xiran magaalada Hargeysa waxaan leenahay Cabdullaahi Warsame Cabdullaahi Warsame hadduu dambi qabana waa in maxkamad la keenaa oo xeer ilaalintu ay ku soo dhaweysaa oo la ogaadaa dambiga uu qabo hadduusan dambi qabina waxaan leenahay waa in si degdeg ah loo sii daayaa ma aha qofku inuu iska madax duubnaado oo qof isaga xidhnaado waxaan ognahay kiiska hadduu kiis lagu hayo waa in maxkamad la keenaa hadduusan kiis waxaanu leenahay xukuumadda Somaliland oo ka codsanaynaa Cabdisalaan Cabdullaahi Warsame oo laga soo xiray magaalada Laascaanood oo ah gobolada Somaliland oo laga qaaday oo la geeyay magaalada la yiraahdo Hargeysa lagu xiray ninkaas oo muddo hadda xidhnaa oo aan maxkamad la geyn aan xeer ilaalin la geyn aan wax war laga soo gudbin oo dambi loo haysto waxaan xukuumadda Somaliland ka codsanaynaa haddii ninkaas dambi uu leeyahay uu ku cad yahay oo loo haysto maxkamadda waa in la keenaa xeer ilaalinta waa in la keenaa sida odayaashu ka hadleen ama sheegeen ninkaas anagu waxaan u naqaanaa nin reer Buuhoodla oo oday ah oo u shaqeysta caruurtiisa iyo dadkiisa aan meel wax dambiya iyo maartay socod xumo iyo dhaqan xumo midna aan lahayn waxaanu ka codsanaynaa macalaaya kullu xaalad dhammaan hadal iyo dhammaan maxkamadda iyo xeer ilaalinta in la keeno dambiga uu leeyahay haddii uu leeyahay in isagoo cad la soo Cabdisalaan Cabdullaahi Warsame oo magaalada Laascaanood sida odayaasha kale ilaahay dambi hadduu leeyahay lagu cadeeyay baa laakiin Cabdullaahi dambi ma leh waa ninka ummadda u garsoora waa ninka nabadda hoygeeda qof bani aadamihi haddii la yiraahdo hal la aamino qofka la aaminina dadka nabada qaar baa wax iska sheego halkan aad martay iyo halka kan iyo iska sheego moogtay la badan baa jira dadku si isugu dhawaanayo waa in laga shaqeynaa dowladda Soomaaliland Cabdisalaan Cabdullaahi Warsame oo wax dambi oo lagu haysto aanan ogeyn oo laga qabtay magaalada la yiraahdo Laascaanood loona qaaday Hargeysa wax maxkamad aan horkeenin wili ninka in la sii daayo oo xorriyadiisa lagu soo celiyo oo hadii dambi lagu haysto dambigii maxkamadda la keeno oo la soo hortaago maxkamadda hadii dambi lagu waayo ninka xorriyadiisa